بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabnaa bis wacyigelin yar oo myopia ku saabsan oo loogu talagalay dadka oo dhan inay yara fahmaan bal cudurkan iyo waxa uu yahay marka si yar oo kooban iyo khatarta nagu soo wajahan cudurkan uu ku soo sababi doono adduunka heerka ay la eg tahay oo ayaan wax yar idinka soo tusi doona hadduu Ilaahay yiraahdo cudurku waa myopia myopia haddaan si fudud idinkugu fasiro waa cudurka ugu badan ee dhaliya aragtida fog oo yaraata haddii aragtida fog ee qofka yaraato cudurka ugu badan ee dhaliya inay aragtida fog yaraato ayaa la yiraahdaa myopia cudurka ugu badan ee dhaliya aragti la'aanta waa cudur la yiraahdo cataract oo caadka isha ku dhaca laakiin kan wuxuu uga duwan yahay kan wuxuu yareeyaa aragtida qofkii aragtida dhow way u fiican tahay laakiin aragtida fog ayaa yar waa cudurka ugu badan waxaa la yiri 2050 ku dhawaad kala bar dadka dunida waxay qabi doonaan myopia half of the population oo adduunka ku nool waxay qabi doonaan myopia marka la gaaro 2050 oo waliba hadda daraasad Mareykanka laga soo bixiyay waxa la ogaaday ilaa 25% oo dadka Mareykanka inay qabaan myopia 25 to 30% laakiin 2050 waxa la isku raacay in kala bar adduunka dadka ku nool ay qabi doonaan myopia waliba xilligaas ku dhawaad 1 billion oo dada waxay qabi doonaan wax la yiraahdo high myopia daran oo myopia marka qofka garaadadiisu ay ka weyn tahay 5 ilaa 6 oo minus marka ku dhawaad 1 billion people waxa ay qabi doonaan liiri myopia daran waxay myopia kale aan darneer uga duwanta waxay dhalin kartaa cudurro kale oo halis ah oo ka mid tahay cataract oo ah caadka isha ku dhaca caadkaas hadda haddaan idin yara tuso caadkaas meesha ku dhex mataqaan isha bu'da yar ku dhex jirto caadka ka dambeeya waaye hadda labada ilsa u jeedin way kala duwan yihiin ishaan bu'da dhexe waa madowdahay ishaan bu'da waa cadda waa cataract waxyaalaha dhalinta waxaa ka mid ah cataract waxaa ka mid ah glaucoma oo ayadan myopia daran ay keento glaucoma waa pressure isha ku dhaca oo qofka waxaa kordhayo pressure isha gudihiisa kordhayo taas maxay keenaysaa dhow neerfaha dambe ee la rabo in aragtida qaado inuu dhinto oo waliba hadhow wax ka qabasho lahayn myopia way sababi kartaa waxay kaloo myopia sababi kartaa wax la yiraahdo retinal detachment oo in shabakada dambe ee aragtida u qaabilsanba ay meesha ku dheganayd ka soo foqdo darbiga dambeba ay ka soo foqdo ay xitaa dhalin kartaa marka ku dhawaad 1 billion oo dadkaas ka mid ah oo 2050 ga soo socdo waxay qabi doonaan myopia daran oo cudurrada halista ee qofka ku dhalin karto oo qaarkoodna ay sababayaan sida hadda idin soo sheegay aragti la'aan aan waxba laga qaban karin waxyaalaha sababaya glaucomada inkastoo mid aan uga hadli doono cashiro badan oo nagu soo socdo waxaa ka mid ah dhararka isha oo intii loogu talagalay ka fog ama ka dheer oo isha meesha la rabo normally intay korodho in ka badan inay dhararkeedu gaaro waxay sababtaa myopia waxay sababtaa bu'da isha hore ee la yiraahdo cornea nadiifkaas oo more curve noqdo oo macnaha qolocsanaantiisa aad u badan tahay madowgaas wuxuu ka qayb qaataa inuu ilayska isha galayo oo dulgeeyo meesha loogu talagalay shabakada dambe aragtida haddaba haddii more curve wuxuu keenayaa in aragtidii iftiinkii meeshii shabakada uga dul dhici lahaa meelan ahayn inuu ku dul dhaco taas waxay keenaysaa myopia inay dhacdo sidoo kale lens oo meesha daayay cataract ku dhacaysa caadka ku dhacay oo asagana ka qayb qaata ilayska inuu isha gudbo haddii lacala ay korodho macnaha awoodda isha ay ku speedka uu ku mari lahaa uu yaraado asagana waxay dhalinaysaa in myopia dhacdo midaan uga hadli doono hadduu Ilaahay yiraahdo si briefly waxyaabaha marka inay waxaan dhacaan ka qayb qaata ama fududeeyo waxaa ka mid ah dhaxaltooyo oo macnaheedu haddii waalidkaaga lacala uu qabay hadduu hal waalid qabay 30%
soddon boqolkiiba inay carruurtu qaadaan jaaniskooda waaye haddii hal waalid uu qabo hooyada ama aabbaha ay myopic ahayd haddii labada waalid ay qabanaysa in 50% ka badan jaanis ayaad leedahay inay adiga myopic ugu dhacdo waxyaabaha ka qayb qaatay inuu cunuga myopic qaado waaye sidoo kale isticmaalka badan ee mobilada iyo computerska iyo mataqaanaa shaqooyinka dhow oo aad uu qofka u qabto ama mobile badan oo aad u isticmaalo ama computers badan aad u isticmaalo ayadana waxay dhalinaysaa inuu myopic ku dhacdo ama ay soo degdegto ama myopic jirtay